wardegdega waxa la sii daayay 25 maxbuus oo kamida maxaabiistii lagu hayay magaalada Laascaanood ee argagixisada cabaadweynta SNM laga qabtay kuwaas oo isugu jira dumar dad xanuunsanaya odayaashii waayeelka ahaa ee gacanta daraawiishtu leeftay madaxweynaha maamul goboleedka Khaatume State Cabdiqaadir Aw Cali Firdhiye oo sheegay mujrimiintii iyo daalimiintii in maxkamad la soo taagayo kuwa aan la sii daynin. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Kulanti waxaan wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed goob kasta iyo goor kasta joogtaan waa barnaamijkeena iftiiminta oo maanta isku dul taagayno 25 maxbuus oo maamul goboleedka Khaatume State ay sii daayeen. 25 ka maxbuus waxa kamid ah dumar, caruur, dad xanuunsanaya iyo kuwa xabada daraawiishtu leeftay odayaashii 80 jirada ah ee lunaarka ahaa ee xabada daraawiishtu leeftay wheelchair ku fadhiya dawladda Soomaaliya qaasatan ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo golihiisa wasiiradu waxay codsadeen dawladda Soomaaliya in dadka waxa weeye loo sii daayo maadaama ay isugu jiraan dumar, caruur, cabaadweyntu ay ka carartay nimanka naagahoodii ka cararay dumarkoodii ka cararay ma macadar baa xitaa ku jirta sababtu weelada waxa weeye soo qabatay gabdhiye ka yaaceen iyagoo le war hanaga tagina qaar ay gawaarida ka soo tuureen iyo dad xanuunsanayo daraawiishti jabaahiirtii ee saa u ruqaansatay oo wheelchair ku fadhiya qaar waayeel ah ayaa hadda la sii daayay. madaxweynuhu wuxuu sheegay Cabdiqaadir Aw Cali Firdhiye in waxa weeye maxaabiista kuwa mujrimiinta ah ee daalimiinta ugu horeeyo Faysal Cabdi Bootaan garka yogol iyo 25 nin ee saraakiisha ee madaafiicda magaalada Laascaanood ku la dhacay ee maatada leeyahay kuwa in maxkamadda Khaatume State la soo taagi doono shariicada islaamka la waafajin doono waxa ay sameeyeen lagu sameeyo bal waxa rabaa inaan waxa ay ku sameeyeen dadkana in lagu sameeyo waxa ka codsanaya barnaamijka uu soo gaarana si share garay sida salaad ku joogtana u soo tukabadayna gelin hadii kala nabi ku salli Allahumma salli ala sayidina Muhammad waxa rabaa wax yar inaynu bal aad isha saa u marino maxaabiistii 25 ka ahaa ee dawladda Soomaaliya codsatay ee waxa weeye maanta la sii daayay ayagoo calankii buluuga ahaa dulli isagoo dulleysan baan ku iri eegay horaan idinku sheegnay toobin baa la idinka dhigaya calanka buluuga maanta 25 ka maxbuus ee dumarka iyo isugu jira magaranaysaa dadka waxa weeye xanuunsan iyo kuwa dhimirka ah ee dawladda Soomaaliya codsatay calankii buluuga ahaa inta loo xiray eegay waxa la tusay oo la fahansiiyay wada dhuxuleed inay saarnaayeen inay khaldanaayeen waana taaso abada ah burcay hargeysana calanka buluuga ah sidaas uu u tagi doonaa ee bal iyagu calanka Soomaaliya ku labisan oo calankiisa u leefleefaya oo alxamdulillah ay ka carareen dumarka ka carareen musujuudan gurigaaga alla ma nuuro magabada naadeerta ka tagi kara oo ka carari kara tallaayeena la ilaaha illa allah muhammad rasuul calankii buluuga ahaa baa loo xiray waxa weeye oo birohoodii sita Muqdisho laga dajiyay isbitaal baa hadda la dhigay waxa weeye dawladnimada sharafta iyo midnimada iyo gobonnimada waxa ay leedahay maanta nimankaas dareemaya baladeegay argagixisoy eegay waa ka maanta waxa weeye maxaabiistiini iyo calanka buluuga waxa weeye ku labisan oo Ilaahay u mahadnaqaya oo midnimada iyo gobonnimada iyo Soomaalinimada waxay tahay maanta aaminsan baladeegay laakiin midskay laawa mid aqligiina ha gelinina ha ku seexanina hana ku soo toosinina nagu binaadam baanu nahay dad muslim baanu nahay dad xalaal ku dhashay baanu nahay dad iimaan leh baanu nahay dad kiniinka cunama nihin eegay bini'aadanimada iyo islaamnimada iyo diinteeda macaanay nasiixa waxayna faraysaa qofka xanuunsanaya anagu sidiina waxa weeye maxaabiista idin habeen imaan bur lama dhacno ragga sida la isaga dhiciyana waa naqana sida maatada iyo dumarka iyo caruurta iyo qofka waxa weeye dhimirka ah iyo ka xanuunsan iyo ka dhaawacan loo daryeelana waa naqan mid aqligiina ha gelina Faysal Cabdi Bootaan iyo garka yogol iyo ragga la midka ah ee 25 ka eegay kuwaas inay soo baxaan ha sugina maxkamad baanu taagaynaa baan ku daldalaynaa daldal harig baanu ku ceejinayna siday dadka ugu xuyo sidoo ku galay hadaan loo galin sidoo ku garan sidoo ku galay hadaan loo galin sidoo ku garan bal khudbadii madaxweynaha Cabdiqaadir Aw Cali Firdhiye madaxweynaha maamul goboleedka Khaatume State laandeeruhu dhalay oo arrinka ka jawaabaya shacabkana waxa weeye ogeysiinaya
ayaan rabaa inaan idinla wadaagnay barnaamijka si shargaraya kuwa dambiilayaasha ee daalimiinta cadaaladda la horgeynaya macnow waxaad iska ilowdaan Faysal Cabdi Bootaan iyo garka yogolaya inay soo baxaan ha ku seexan hana ku soo toosin waxaan maanta aanu sii daynay waxa weeye islaamnimada iyo diinta iyo dhaqanku uu nafarayo waa dad maata waa dumarkii aad ka caartay maama cadar baa ku jirta maama cadar madaxweynuhu xitaa sheegayo dumarkiina baa ka yaacdeen fulayda kale loo waaye fadalkoodu geelu ka cabay cadar baa ku jirta waa maamo waa hooyo waa nin baa intuu soo kaxayay halkaa keenay waxyaalaha anaga xaaraanta naga waxa weeye dumarka iyo ciyaalka iyo gabadha la qaba iyo garasay nin dumaashidii bacsanaya baad arkaysaa waa dhaqanka Hargeysa yaala nin gabadhii uu qabay walaalkii intuu u dhaafo dhabi la dhacayo wala yacaanka bruuga bay seetaa xaasaska iyo ciyaalkii dumarka ciyaalka abtigootiin iyo gabdhaha aad qabtaan ma guriga ugu daad haye gobonnimadii soo martaa gobonnimo meel la idima soo marto cabaad weyni nin gabadhii uu qabay maanaha anigu gabadh walaalkay qabo oo dumaashida carruurta adeerka waa dhashay guriga inta ugu dhaco habeen madow bud la dhici kara kuwa aad haysaana haddii ay gaadho baan ku iri inta in leega haday gaadho ballan iyo axdi waxa abaan ku iri burcay Hargeysa in qayl ka yeedho uma naasiiday in shallatan lagu soo daayay mid hadduu ka dhiman yahay baan ku iri nimanka maxaabista aad haysaan mid hadduu uu ka dhiman yahay anagu gorgortan kaba geli maynaba waxaanu samaynay bini'aadamnimo u samaynay Soomaalinimo u samaynay dadkaas waxa weeye la soo waalay la soo khalday xanuunsanaya ilaa qof xanuunsanaya oo aan iska ka celin karin oo wuljeer ku fadhiya iyo gabadh ooyeysa waxaana uma dhageysan karo taasaan u eegnay wada tashi dheer waxa la yiri dadka maatada iyo dumarka ay ka carareen iyo xitaa ciyaalo waxa ku jira 14 jir oo qori u soo dhiibeen iyo odayaal 8 jir oo ay baashu leeftay waa leeftay rag baa Cabdi Madoobe iyo daraawish jamaahiirtii wiilasha harti waa soo ururaasaday ay leeftay wuljeer ku fadhiya isbitaal Martiini bay ku jiraan maanta dhamaantood dawladda Soomaaliya qaaday calanka buluuga ayagoo ku qanacsan dawladnimada ku qanacsan sharafta ku qanacsan saa calankii Soomaaliya u leefleefaya waxa weeye alxamdulillah rabbil aalamiin ilaahoda Soomaaliya naga dhigay ilaahu calanka buluuga ilaahoda cawaale la siiyay leh ilaahay ka sokow cawaale madaxiisa ku soo baxeen waa kuwa dadkii masaakiinta soo luguyseen SNM argagixisoy calan casay ilma la fasidato beenaalayaal dadka soo luguyseen masaakiinta waa kuwa maanta waa la daryeelaya dawladnimadu wata shacabka waxa weeye Hargeysa burco jooga wayna maskaxdooda dib ugu noqdaan haye argagixisoy see dareemaysan maanta xaalkiina xagu maraya mar dhow ay afka furanayeen sidii yey dhashay iyagoo lama TV-yada fadhiya arkayso tamar male taye male aqli male damiir male garasho male laakiin shacabku waxaan leeyahay waxa dulliga ah ee sidaa idin bahdilaya iska qabtaa leeyahay hadda aqli leedihiin madaxweynuhu waa ku maadsan yahay madaxweynaha Khaatume State mudane Cabdiqaadir Aw Cali Firdhiye iyo golaha baarlamaanka golaha wasiirada golaha amniga iyo shacabku waa ku maadsan yihiin sida gobonnimada leh bini'aadanimada leh islaamnimada leh ee waxa weeye inta nagu dhiman lahaayeen halkaas waxa weeye ku dayacmi lahaayeen intii ka horeysay waa la soo hayay waa la daryeelay waa la daweynay maanta hadii dawladda Soomaaliya ay la wareegtay alxamdulillah weeye insha Allah bidnillahi kariim imma daalimiintii baa soo haray kuwa 10 official baan ku TV-yada caalamka laga daawanaya si toosa shariicada islaam kitaabkaas loogu furaya kitaabka munazzalka basa loogu furaya shariicada islaamka la horgeeniyo waxay shariicadu u goysana way qaadanayaan kitaabka Ilaahay baa loo furaya wala qodob baan jirin wala xeer baan jirin wala dhibic sagaal xariijin xeerka ciqaabta shariicada islaamka loogu yeeyo kitaabkaas loogu furay wixii shariicadaas soo qaadanaya ha sugina garka yogol iyo Faysal Cabdi Bootaan inay soo baxaan abadan aslan maanku arabiga rasaas ka bariyay ku raaxaysa wiireenka kaara war barnaamijkaasi sheergaraya gobonnimadaas reer Khaatumo maanta ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxay u duceynaysaa reer Khaatumo maamulkooda madaxweynahooda gobonnimada nimanka ku jirta reer Khaatumo iyo sharafka iyo karaamada nimanka Ilaahay siiyay cadow Soomaaliyeed markay arkaan gaal markay arkaan gumaysta markay arkaan miciye libaax bay yeeshaan reer Khaatumo qofka Soomaaliga laakiin aad bay ugu naxariistaan gobonnimada iyo naxariista iyo sharafka iyo karaamada reer Khaatumo leeyihiin ummadda Soomaaliyeed maanta waad aragtaan marag iyo marxaati baad ka tiin horeysa iyo dambayso in Ilaahay hadiyad reer Khaatumo inay tahay hadiyad Ilaahay ummadda Soomaaliyeed siiyay oo makan siiyay aad baad u maasantiin
خير يا بركة دير جنيه برنامج كسي شارقري بلا دقيقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته